aynu ku bilownay agaasimihii xafiiska wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa shaqada laga ceriyay kadib markii uu soo jeediyay Israa'iil in xiriir la yeesho. wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee xukuumadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa la sheegay inuu shaqada ka ceriyay Cabdullaahi Axmed Dool oo ahaa agaasimihii xafiiska wasiirka arrimaha dibadda kadib markii sarkaalkaasi sida la sheegay bartiisa Twitter-ka oo ku soo qoray qoraal uu ku taageerayo in dawladda Soomaaliya xiriir dhanka diblomaasiyadda ah ay la yeelato Yuhuudda. Cabdullaahi Dool waxa uu Twitter-kiisa uu ku sheegay in ay habboon tahay in xiriir dhanka diblomaasiyadda ah lala yeesho Yuhuudda taasi oo uu u arkay wax dhibaato ah inaysan lahayn marka laga hadlayo dhanka xiriirka diblomaasiyadda. wuxuuna sheegay inay danteenu tahay inaan soo dhaweyno maamulka Yuhuudda. qoraalkaasi markii oo uu ku soo qoray boggiisa Twitter-ka Cabdullaahi Dool waxa uu dhaliyay hadalhayn kala duwan oo dadka ay kaga farcelinayeen isaga oo ah mas'uul ka tirsan dawladda Soomaaliya gaar ahaan xafiiska wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya inuu soo jeediyo in xiriir dhow dawladdu ay la yeelato maamulka Yuhuudda oo la og yahay dhibaatada ay ku hayaan shacabka muslimiinta ee reer Falastiin. iyada oo tallaabadaasi kala duwan ee hadalhaynta dadku ay soo jeedinayeen ayaa warar soo baxay waxa ay sheegayaan in ugu dambeyn shaqada laga ceriyay Cabdullaahi Dool oo ahaa agaasimihii xafiiska wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya. dhinaca kale madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka hadashay arintaasi waxaana barta Twitter-ka ee xiriirka bulshada uu ku leeyahay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed uu ku soo qoray Israa'iil inta ay dhul dad muslimiin ah iyo magaalo barakaysan xoog ku haysato iyo inta ay xabsiga dusha ka furan ku hayso reer Falastiin wax xiriir ah nama dhaxmari karo qof walba oo fikirkaasi qabana kama shaqayn karo umana shaqayn karo dawladda federaalka Soomaaliya ayuu ku soo qoray agaasimaha xiriirka dhanka warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya boggiisa Twitter-ka taasoo muujinaysa in xitaa madaxtooyada ay raali ka ahayd shaqo ka ceerinta lagu sameeyay agaasimihii xafiiska wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdullaahi Dool oo ah diblomaasi wax ka garanaya arrimaha diblomaasiyadda.